tababarkani waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmada Burco isagoona ku saabsanaa diyaarinta miisaaniyadda 2027. Tababarkan oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa ujeedadiisu tahay in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadda maamulka maaliyadeed ee degmooyinka si loo hubiyo in miisaaniyadda 2027 ay noqoto mid ka jawaabta baahiyaha dhabta ah ee bulshada, dakhliga soo xaroodana loo maareeyo hab hufan oo daafuran. Waxaana ka qayb galayay tababarka agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee Burco, xisaabiyaasha dhammaan degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer. Furitaanka tababarka waxaa si rasmi ah u sameeyay barasaabka gobolka Togdheer iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Aamin Cabdilaahi Yaasiin, kuwaasi oo dhammaan ka qaybgalayaasha ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan aqoonta halkan lagu kala qaato. Mas'uuliyiintu waxay hoosta ka xariiqeen in diyaarinta miisaaniyadda suuban ay asaas u tahay horumarka waara ee deegaanka iyo bixinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah. Xisaabiyaasha iyo madaxda maaliyadda ee degmooyinka gobolka Togdheer ayaa la faray in ay xil weyn iska saaraan sidii qorshaha miisaaniyadeed ee sanadka 2027 u noqon lahaa mid ku qotoma xaqiiqada iyo mudnaanta koowaad ee bulshada. Waxaynu ogsoonahay dakhligu doorka uu ku leeyahay fulinta adeegyada aynu bulshada u hayno. Marka aynu si fiican u ogaano forecasting ku sameeyno dakhligeena in soo galiyo 2027 taasi waxay fursad inoo siinaysaa sidoo kale inaan jaangoyno kharashaadka actualka ah ee saxda ah ee markaas aynu galayno. Bulshooyinka aynu adeegnaa ka dowlad hoose ahaano waxqabad bay naga sugayaan. Hadday tahay social development-kii, caafimaadkii hadday waxbarashadii tahay, hadday kaabayaashii dhaqaalaha tahay oo ay ugu horeeyaan wadooyinka hadday tahay, adeeg kastoo la qabanaya wuxuu u baahan yahay dakhli lagu qabto. Dakhligaas badanaa mid buu noqdaa mid locally aynu inagu raais garayno ka ururino bulshada aynu u shaqayno iyo mid external ah oo aynu kabka u naqaano oo inooga yimaada markaas central government-ga iyo sometimes waxyaabo kale oo other donations oo kale sida waxyaabaha kale ganacsatada waxa laga qaado oo iyada miisaaniyada sometimes lagu daro lacagaha laga sugayo contribution-ka dadweynaha oo badan ayaduna lagu daro laakiin badan ayna arag. Marka waxaan idin rajaynayaa haddii la ilaahay si fiican u siisaan concentration-ka inaad si fiican ugu fiirsataan waxyaabaha maanta halkan ku dhiganaysaan, waayo waxaas waa wax saameynaya nolosha bulshada. Waxaynu u baahanay inaynu sameeyno miisaaniyad markaas reliable ah oo la isku halayn karo oo sax ah. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay si fudud noogu fududeeyo fahankeeda, annaguna aynu mas'uuliyadda qaadno shaqo dhameystiran oo wanaagsan oo degmooyinka dhammaan anfacda. Ayaan ilaahay ka baryaynaa ku soo dhawaada magaalada Burco iyo degmada Burcaba insha Allah guulban nafsanaya dhamaantiin. Muddo 2 cisho ayaan halkan ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo aynu isla eegayno miisaaniyadda 2027 degmooyinkuna sidaan horeba idinku soo sheegnay waxa loo baahan yahay in degmooyinka sii diyaarsaday qorshayaashoodii miisaaniyadda ee 2027 in wixii farsamo intaynu halkan iskula eegno degmo waliba sida loo kala diyaarsan yahay in halkan dabadeetana aynu ku diyaarino miisaaniyaddii 2027 oo dhameystiran kadibna aynu u saxeexno ama u saxeexdaan si iyadoo dhameystiran aynu u qaadano aynu u geyno u wareejino maadaama qorshihii laydinkaga doonayay miisaaniyadda inaad soo xareysaan ay taagneed 20 bisha ahayd muddadan yar ee kooban ee tababarka socdo aynu daba dhignay. Waxaan rajaynayaa muddada 2 cisho aynu wada joogno inaynu wixii caawin ah ee diyaarinta miisaaniyadda halkan ku kala qaadan doono kadibna aynu sidaa miisaaniyadihii oo diyaarsan cidii aan dib ugu noqonaynin sida degmooyinka golayaasha deegaanka la kale iyagu golayaashoodii ka soo ansixinaya mooyee wixii kale ee degmooyinka dhiida ah ee ay u diyaarsaneed qorshahooda 2027 jeedina inaynu iyadoo diyaarsanba halkan idinkaga qaadno haddii la yiraahdo inta ku saxeexdaan ku shaabadaysaan. Intii shirkiinani waa muhiim in hadiyo jeeraale degmooyinka saacad kastoo xil wareejin dhacayso intaasaa deyn lagu leeyay un baad timaada inaydin markaa xisaabaadka dawliga sida loo xidho ee aanay daba furan wax isaga noqon iyo miisaaniyadaha sida loo samaysto iyo haddii dalku kobcayayo marka waxa loo degmo walba miisaaniyadda wax loogu daraya oon ahayn inta yara kabka oo maanta saa u maamushaan anigu kolley aan aad xogogaal ugu ahay yar tahayna wixii dadaal badan baynu wadnaa. Tababarkani ayaa qayb ka ah qorshayaasha ay wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka iyo dowladda hoose ee degmada Burco ku horumarinayaan awoodda maamul iyo maaliyadeed. Ilaahay Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Qaranka Somaliland, Burco.